سلام كدي وحوي مدشان مناسبة maanta aan iskugu niminay nuxurkeedu inaan garab taaganahay go'aankii saddexda xisbi ay gaareen in la qabto doorashooyinkii golaha wakiilada iyo deegaanka wax badan oo laga hadlayay magaalada oo dad hadlayeen way jirtaa qofba mowqif ka hadlayay habase ahaateen nuxurka kama dambeynta ee beeshu isku raacday ee beeshu ka soo shirtay waxa weeyaan inaan diyaar u nahay inaan kaalintayada ka gallo doorashada xisbiyadu go'aamiyeen golayaashuna aqbaleen inta kadib waxa weeyaan shalay bayaan laga akhriyay hudheelka Haldoor wax bayaan aan cid u wakiilanay oo cid aan isla ogeyn oo annaga nagu matashay oo halka ka hadlaysay oo ognahayna ma jirto marka tolahaan 12kii dabbaanahay soo iskuma raacsanin doorashada inaan gallo assalaamu calaykum horta uqaasha habar cafaan ee halkan iskugu timiday maanta waxay diyaar u tahay inay doorashadii bilaa sabab ku galaan kolkaan bilaa sabab ay ku galayaan aan leeyahay 15 sano ayaa la isjiidanayay maanta oo doorashadii midha ka hadheena aan joojino horta waa mid qalada mid yaalka bariyahan dhaweyta waxa ka socday doorashada gali mayno dib baa loo dhigi shalay baa baaq laga soo saarayay horta baaq la isku ogyahay intii isku ogayde way isku ogtahay laakiin uqaasha habar cafaan ee maanta 12 halka fadhiday waxa biyo kama dhacbaana inay doorashadii gasho waxa kale oo jira in saddexda xusbi qaran waxbay ku heshiiyeen in doorashadii lagu galo bilaa shuruud lagu galo sidii hore lagu galo beesha habar cafaan ka adhiga la jooga ka beerta qodaya ka burufeseerka ka uqaasha ka baamustariga ma haween doorashadu inay soconayso diyaar u wadanahay diyaar waa doorashadii waxa laga hadlayaa doorashadii maanta inagu diyaar inaan wayn wax alla wax inaga hor istaagay doorashada ma jirto dadka waxa kala sheegaya de aynoo yimaadaan oo tala aynu ku midaysanno ay noola yimaadeen oo ay wax ku doonayaan ma hayno waxaan doonaynaa doorashada inaynu galno wax kale oran maayo waa la wada yiri arrimaha waa la iiga horeeyay anagu salaadiin baano salaadiintu waxay ka hadashaa waxyaalaha wixii nabadda iyo dadaalka ka hadashaa waxaan leeyahay doorashada horta way dhacaysaa halkana waxa isku timida beelweyntii habar cafaan oo dhan haday siyaasi ahayd iyo haday uu qaalahayd anu hadalka ma badinayo waxaan ka hadlayaa laba qodob oo kaliya qodobka koobaad waxa weeye anagu haddaan nahay uqaashi habar cafaan waxaan diyaar u nahay doorashada inaan si toosa u gallo ku yar iyo ku weynba الله وبركاته سلام كدب halkan 12 habar cafaan baa ku dhan dhalinyaro iyo qaal iyo odayaal iyo siyaasiyiin heerkala intaba shaqada qurba ka dhaxaysa waxa ka dhammal qaadatay waxa 12 habar cafaan kama horeey way ka amba qaaday walka way shaqada qurba ka dhaxaysa dadkii hogaankii hortaba siyaasadda halkay ka dhamashay halkan ahayd inna walkii wanaga joognay inaan horu socno halkeedii dhaafnaan horta ilaahay weydiisanayna tan iyo imka danta laga hadlayo gobolka hadal badan baa ka socda oo dhawalba uu socda hadalku dadkuna de waxaan uma dhana cid loo idmado ka hadlaysaana way jirtaa haba saatee dhammaan waxa leeyahay intani habar cafaan waxay isku raacday foodkii maanta in la galo oo shuruud la'aanta la isku raacay waa wax laga midaysan yahay dhammaanteed inta liya inta ka maqaniba haddii la raadinayo wax maqayihiin dadku de isagoo midaysan buu raadiyaa mar hadduu jajab yimidayna xagga dawladdan un baan anagu taabacayna maanta
هذا تابعنا كنا دقائقنا كنا ضيارنا هاي السلام عليكم. hadalkuna oon raacinayaa wixii hawdad bini'aadamku leeyahay unbaan leenahay gobolku wuxuu leeyahayna waan leenahay madaxafaano halkan ku dhagna waxay isku raacday inay doorashada ka qayb gasho anigu waxaan leeyahay doorashadu way dhacaysaa hadduu ilaahay idmo sidii loogu talagalay u dhacaysaa haddaanu nahay beelweynta habar cafaan kolley waxaanu leenahay dhinaca dhaqanka iyo dhinaca siyaasadda sideedaba siyaasadda waanu ku kala dambaynaa marka hore arrinkan laysku lagu yar wada hadlayo ee doorashada ma gelayno iyo waan gelaynaa dadka qaar ay wada leeyihiin annagu waxaan qabnaa doorashada in la galo si nabadgelyaa lagu galo dadkuna ka qayb qaataan ka beel ahaan habar cafaan annaka hamadeedu doorashadoo keliya oo la galo way ka sarraysaa waxaan rabnaa inaan isu sharaxno madaxweyne ku-xigeenka mustaqbalka ee somalilan intaa haddaan ka gudbo waxa weeyaan doorashadu way qabsoomaysaa suldaanka suldaan cabdiraxmaan jaamac dhawel wuu mahadsan yahay ummadda uu ka wakiilahaa wixii ay u doorteen uunbuu hootahayay anigu gaar ahaan baan ula sheekaystay wax xaquunu ii sheegay wuxuu yidhi annaga suldaano naga horreeyey baa wilaayadda saami qaybsiga noo dhiibay waa qor isku dhiib annaguna waxa weeyaan taa halkaa kaga teg mayno xaq buuna u leeyahy inuu sitaa yidhaaho waan ku taageerataa waayahay waxaa kaloo aan taageerayaa markaa mas-uuliyiinta kale siyaasiyiinta ee beesha ka mida habar carfaan sida mas-uulka ugu sarreeya wasiirka oo kale iyo madaxweynaha jamhuuriyadda ulal amrigiia haddii uu suldaan kuma ogolaaday qor isku dhiibka saami qaybsigii laga hadlayay loo soo dhiibay inuu gudbiyo maxaa u diiday xaqa madaxweynuhu inuu yeesho madaxweynuhu xaqa oo qori isku dhiibkii madaxweynayaashii hore u soo gudbiyeen isagu gudbiyo sideedii lagu galo doorashada matuka camaarnaad muuse bici